bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan ku soo dhawaada daawadayaal warka galwariid miidiya qodobada ku daawad doontaan waxaa ka mid ah gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Puntland Doobadaareed oo Muqdisho si qarsoodi ah ku yimid iyo dowladda Soomaaliya oo la wareegtay amnigiisa taliyaha booliska oo laga celiyay xeyndaabka fila Soomaaliya iyo kan asluubta oo xoog ku gudbay marxuumba in saraakiisha madaxtooyada ay dacwad ka gudbiyeen taliyaha ciidanka asluubta xog ayaan idinkaga hayaa arrintan koox hubeysan oo ka tirsan Al-Shabaab oo xalay weerar ku qaaday magaalada Gaalkacyo dhankeeda waqooyi ee Puntland ay ka arrimiso qasaare ayaa jira xog ayaan idinkaga hayaa arrintaasi gudoomiyaashii Gado ee la jirsaday dowladda federaalka oo Muqdisho soo gaaray iyo Turkiga iyo Liibiya oo gaaray heshiis military haddii aad ugu cusub tahay fadlan daawada subscribe channelkan si aad u hesho wax kasta aan channelkan soo gelino taariikhdu waxa ay tahay 16 bisha 12 December sanadka 2019 intaad maqasheen oo faahfaahsan ku soo dhawaada daawadayaal gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Puntland Cabdixakiin Doobadaareed oo sidoo kale dhawaan lagala noqday xasaanadii xildhibaannimo ayaa soo gaaray Muqdisho Doobadaareed ayaa la dejiyay hotel Jazeera ee magaalada Muqdisho kadib 24 saac uu deganaa hotel Paradise oo ku yaala meel u dhow aeroportka Muqdisho qorshaha socdaalkiisa ayaa lagu sheegay inay ka dambayso dowladda Soomaaliya isaga iyo siyaasiyiin kale oo deegaanada Puntland xilal kala duwan ka soo qabtay wararayashii caasimada Orleano warkan daabacday ayaa sheegay in Doobadaareed uu abaabulayo dhismaha maamul goboleed la yiraahdo Maqri State oo ka shaqeyn doona gobolada Sool iyo Sanaag oo ay si wada jir ah uga wada arrimiyaan haatan maamulada Somaliland iyo Puntland waxaana abaabulka arrintan wax ka wada madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Puntland ahna safiirka dowladda Itoobiya u fadhiya dalka Soomaaliya Cabdixakiin Cami toddobaadkii tagay Cami iyo Doobadaareed ayaa magaalada Addis Ababa kula kulmay ergeyga Turkiga u qaabilsan wada hadallada Soomaaliya iyo Somaliland kaasi oo la rumaysan yahay inay dhaqaalaha maamulka lagu dhisayo weydiisteen Cabdixakiin Doobadaareed ayaa dhawaan dhowr jeer lagu eedeeyay inuu gacansaar leeyahay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isla markaana uu doonayo kala qaybinta Puntland Doobadaareed gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Puntland iyo madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa waxaa soo kala dhex galay khilaaf muddo badan ka dhex taagnaa mas'uuliyiintan balse ugu dambeyn xildhibaanada golaha wakiilada Puntland ay xilkii ka qaadeen gudoomiyahoodii Cabdixakiin Doobadaareed taliyaha booliska Soomaaliya ayaa laga celiyay xeyndaabka fila Soomaaliya isaga iyo ilaalo wato halka kan asluubta Generaal Mahad Cabdiraxmaan uu xoog ku gudbay kontaroolada madaxtooyada Soomaaliya taliyaha ciidamada booliska Soomaaliya Generaal Cabdi Xasan Xijaar ayaa loo diiday inuu ciidan la gala taliska booliska Soomaaliya ee kumaanda booliska kaasoo u dhow madaxtooyada Soomaaliya sida ila wareedyo u sheegeen caasimada Orleano taliye Xijaar ayaa ciidanka ilaalada madaxtooyada ee ku sugan kontaroolada laga ilaaliyo fila Soomaaliya gaar ahaan midka sayidka waxay u sheegeen inaysan amar u qabin in la sii daayo ciidan balse ay u ogol yihiin taliyaha darawalkiisa oo galiya si uu ugu tago taliska booliska ee kumaanda booliska balse laga reebayo ciidanka kale ee staafka ah sida ila wareedyo u sheegeen caasimada Orleano warkan daabacday Cabdi Xasan Xijaar ayaa falkaasi aad uga carooday isla markaana uu dib ugu laabtay halkii uu ka yimid ilaa haatanna uusan imaanin taliska ciidanka booliska oo u dhow madaxtooyada Soomaaliya ee kumaanda booliska warar kale ayaa sheegaya in dhinaca Shimbiraale ee xiga wasaaradda warfaafinta isaga oo lugeynaya taliye Xijaar iyo ciidankiisa ay ka soo galeen dhinaca kale taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed Generaal Mahad Cabdiraxmaan ayaa xoog ku maray mid ka mid ah kontaroolada madaxtooyada Soomaaliya gaar ahaan midka ceelgaabta taliyaha ayaa la sheegay inuu gaariga ka degay kadibna uu ciidankii la socday ku yiri soo gudba taasoo sababtay muran cabaar socday kadibna loo fasaxay inuu la soo gudbo ciidanka ilaalada madaxtooyada oo ka baqay isku dhac sababi kara dhimasho ayaana jawaab ka bixin tallaabada uu qaaday Generaal Mahad wararka ayaa sheegay in taliska madaxtooyada ay dacwad ka gudbiyeen Generaal Mahad iyagoo sheegay inay ka baaqsadeen dagaal uu taliyaha diyaar u ahaa balse ay sugayaan amar kale oo arrintan la xiriira
shalay ilaa darad waxaa kontaroolada madaxtooyada loo diiday inay kasoo gudbaan wax ciidan ah waxaana taagan muran iyo dood culus oo arrintan ka dhalatay wasiirada xildhibaanada iyo taliyayaasha ayaa doonayay inay ciidankooda la gudbaan balse waxaa go-aankan la qaatay kadib markii xubno shabaab ah toddobaadkii tegay gaar ahaan habeenkii talaadada oo ku labisan dharka ciidanka ay weerar ku qaadeen hotel Israel oo u dhow madaxtooyada Soomaaliya halka oo ay ka geysteen dhimasho iyo dhaawac fara badan markaana Puntland koox hubaysan ayaa xalay fiidkii hore weerar ku qaaday saldhig ciidan oo ku yaala waqooyiga magaalada Gaalkacyo iyagoo u adeegsaday weerarkaas bamgacmeedyo iyo rasaas toos ah weerarkan uu socday daqiiqado kooban ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhaawacmeen askar ka tirsan ciidanka booliska Puntland iyo dad rayid ah ku sugnaa agaarka saldhigga la weeraray dabliida weerarka geysatay ilaa haatan aan la garanayn heebtooda iyo inta ay tiradooda dhammeed ayaa goobta iskaga baxsaday ma jirto cid weli sheegatay mas'uuliyadda weerarkaas xalay ka dhacay waqooyiga magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug waxaana socda howlgallo lagu baadigoobayo kooxdii geysatay weerarkaasi ciidamada ammaanka Puntland ee ka howlgala waqooyiga Gaalkacyo ayaa xalay xiray wadooyinka muhiimka ah ee soo gala saldhigga iyadoo aad loo adkeeyay dhammaan ammaanka xarumaha maamulka ku yaala waqooyiga magaalada Gaalkacyo dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa mararka qaar magaalada Gaalkacyo ka geystay dilal qorsheysan kuwaas oo ay hore ka sheegan jireen mas'uuliyiintooda balse weerarkan ayaysan sheegin weli Al-Shabaab dhinaca kale gudoomiyaha gobolka Mudug ee maamulka Puntland Axmed Muuse Nuur oo wareysi gaar ah siiyay warbaahinta ka howlgasha Puntland ayaa faahfaahin ka bixiyay qaraxyo bambaanooyin ah xalay lagu weeraray saldhigga bartamaha magaalada Gaalkacyo gudoomiyaha ayaa sheegay in xalay 2 bam lagu soo tuuray gudaha saldhigga bartamaha Gaalkacyo kuwaas oo sida uu sheegay aysan wax khasaare naf iyo maalba midna geysan marka laga reebo dhaawacyo soo gaaray dad iskugu jira askar iyo shacab oo ka agdhaw halka bambada ay ku dhacday dhinaca kale gudoomiyaha ayaa sheegay in qaraxyada lagu weeraray saldhigga bartamaha Gaalkacyo aysan ahayn kuwa argagixiso balse ay ku tuhmayaan inay yihiin kuwa siyaasadeysan oo qalqal gelinaya amniga magaalada si xaalad abuur lagu sameeyo sidoo kale wuxuu tilmaamay inaysan jirin cid loo soo qabtay falkaasi gudoomiyaashii gobolka Gaday u qaabilsanaa Jubbaland ee ku biiray dhanka dowladda federaalka dhawaan ayaa Muqdisho soo gaaray wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa kulan iskugu jiray soo dhaweyn iyo xog wareysi waxay Muqdisho ugu sameeyeen qaar ka mid ah gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Gaday ee koonfurta Soomaaliya gudoomiyaasha degmooyinka la ahbaar dheere Luuq Doolow iyo Balad Xaawo dhammaantood ka tirsan gobolka Gaday ayaa dhawaan soo gaaray Muqdisho waxaana ay sii joogi doonaan maalmaha sida caasimada online u xaqiijiyeen qaar ka mid ah wasiiradii maanta la kulmeen gudoomiyaashan oo dhawaan ka goostay Jubbaland kuna biiray dowladda Soomaaliya ee ciidan fara badan ay hogaaminayaan waxaana kadib xilalkii ka qaaday Jubbaland mas'uuliyiinta ka tirsan xukuumadda oo kulankaas ay la qaateen gudoomiyaashu ayaa kala ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda macdanta iyo batroolka Maxamuud Cabdulqaadir Hilaal wasiir ku-xigeenka warfaafinta Aadan Isaaq Cali xubno kale gabagabadii kulankaas ayaa waxaa lagu sheegay wasiirada ka socday xukuumadda iyo gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Gadow isla qaateen xukuumaddu kala shaqeysa mas'uuliyiinta gobolkaas fududeynta iyo hirgelinta adeegyada ay u baahan yihiin degmooyinka iyo deegaanada gobolka Gadow iyagoo ballan qaaday wasiirada in howlaha gobolkaas ay doorkooda ka ciyaari doonaan dowladda federaalka Gadow oo ah mid ka mid ah gobolada uu ka arrimiyay Jubbaland ayaa waxa muddooyinkii dambe ka taagnaa loolan siyaasadeed u dhaxeeya dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland uu hogaamiyay Axmed Madoobe dowladan uu kala dhaxeeyay khilaaf baarlamaanka Turkiga ayaa meel marinaya heshiis ay gaareen madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan iyo ra'iisul wasaaraha Liibiya baarlamaanka dalka Turkiga ayaa ansixinaya heshiis dhawaan ay gaareen madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan iyo ra'iisul wasaaraha Liibiya Fayez al-Sarraj sida laga soo xigtay wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda Ankara heshiiskaasi oo ku saabsanaa iskaashiga labada dal gaar ahaan dhanka difaaca iyo amniga waxaana heshiiskaasi uu ka dhacaya magaalada Ankara ee caasimadda Turkiga waxaana durba heshiiskaasi si adag uga falceliyay xukuumadda Greek waxay ceerisay danjirihii Liibiya u joogay dalkeeda ceerinta danjiraha Liibiya kama aamusin dowladaha Liibiya iyo Turkiga iyagoo ku tilmaamay inay tahay mid qar iska tuur ah Liibiya hata waxaa ka dhisan dowlad caalamku aqoonsan yahay laakiin aad u taag daran waxaana weerar ku haya generaalka falaagada ah la yiraahdo Khalifa Haftar oo isagana gacan saar la leh wadamada ay ka mid yihiin Masar isotaga Imaaraadka Carabta Sacuudiga Raashka Greega haddii baarlamaanka Turkiga uu ansixiyo heshiiskaasi waxa ay heli kartaa dowladda Liibiya taageero dhinacyo badan leh oo ka timaada Turkiga inkastoo haddaba lagu xanto Ankara inay hubsiiso xukuumadda fadhigeedu yahay magaalada Tripoli caalamkuna ay aqoonsan yihiin daawadayaal waa naga intaa warkaad kala socoteen